السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal ku soo dhawaada muuqaalkeennan oo aan ku soo bandhigi doono suuratu al-baqara iyo qisooyinka ay ka warramayso ee caddaynaya awoodda ilaahay ee dib u noolaynta wixii dhintay suuratu al-baqara waa suuradda hogaaminaysa suuradaha qur'aanka maalinta qiyaame waa suuradda ugu dheer qur'aanka sharafta leh waxaa ku jira axkaamta ugu badan ee diintan islaamka rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam oo ka hadlaya suuratu al-baqara fadliga ay leedahay wuxuu ku yidhi xadiiska imaamu muslim saxiixiisa uu ku soo saaray akhriya qur'aanka maxaa yeelay wuxuu imanayaa maalinta qiyaame isagoo u shafaaco qaadaya asxaabtiisa akhriya labada nuurka ah al-baqara iyo suuratu aali cimraan sababtoo ah waxay labadooduba imanayaan maalinta qiyaame ayagoo la mooda laba daruurood ama laba kooxood oo shimbiro saf ku jira ah oo u doodaya asxaabtoodii akhrin jirtay akhriya suuratu al-baqara qaadashadeedu waa barako ka tegiddeedu waa murugo mana karaan sixroolayaashu suuratu al-baqara fadligeedu aad ayuu u ballaadhan yahay waxa ilaahay uu ku xusay 5 qiso oo ka warramaya awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ah noolaynta wixii dhintay qisada koowaad saci reer bani israa'iil xilligii nebi muuse calayhi salaam ayaa nin ka mida reer bani israa'iil wuxuu dilay adeerkii kadibna dilkii uu geystay ayuu ku eedeeyey dad aan waxba galabsanin si arrintaa haddaba loo soo afjaro wuxuu nebi muuse calayhi salaam ka codsaday reer bani israa'iil inay gowracaan sac ka mida lo'dii ay haysteen hase ahaatee way ka cagajiideen ayagoo leh miyaad nagu jeesjeesaysaa nebi muuse wuxuu yidhi ilaah baan ka magan galay inaan idinku jeesjeeso ama inaan ka mid noqdo jaahiliinta waxay dhaheen noo sheeg sifada saca la gowracayo dabcan umay baahnayn inay ogaadaan wax sifo ah sababtoo ah waxa loo diray sac ka mida lo'dooda hase ahaatee way ka madax adeygeen awaamirtii ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi muuse wuxuu ku yidhi waa sac aan yarayn oo aan weynayn oo meel dhexaada ee fuliya wixii laydin faray reer bani israa'iil ayagoo cagajiidaya ayay waxay dhaheen rabbigaa noo bari ha noo caddeeya midabkeedee subxaan allah xataa reer bani israa'iil may dhihin rabbigeen inoo bari ha inoo caddeeya midabkeedee ee waxay ku koobeen nebi muuse inuu rabbi u yahay oo keliya nebi muuse calayhi salaam wuxuu yidhi ilaahay wuxuu idin leeyahay waa sac midabkeedu huruud ama jaallo yahay waxay dhaheen noo bari rabbiga waxa is-shabbahay sacihiiye nebi muuse wuxuu yidhi rabbigiin wuxuu idin leeyahay waa sacaan beerta lagu falanin biyahana lagu dhaaminin oo ka madhan ceeb oo dhan reer bani israa'iil markii ay isku adkeeyeen ayaa ilaahayna uu ku adkeeyey ugu dambayna saci ayay heleen wayna gowraceen ilaahayna wuxuu yidhi wamaa kaaduu yafcaluun waxay u dhowaadeen inaanay fulinin amarkii ilaahay saci markii la gowracay qayb ka mida hilibkiisii ayaa lagu dhuftay ninkii dhintay waanu noolaaday ilaahay awooddiisa darteed reer bani israa'iil waxa yaab iyo amakaa ku noqotay in nin dhintay uu dib u soo noolaado marka laga yimaado in la muujiyo dhagarqabihii wax dilay waxa kale oo dhacdadu ay si toosa ula hadlaysaa reer bani israa'iil oo la tusayo in ilaahay soo bixin doono maalinta qiyaame arrintaasina ay ilaahay u fududtahay subxaanahu wa tacaala qisada labaad 70kii reer bani israa'iil ee naartu samada kaga timi markii reer bani israa'iil ay caabudeen dibigii ayaa ilaahay ku xukumay inay isdilaan kadibna nebi muuse ayaa kaxaystay 70kii ugu fiicnaa qoomkiisa si ay ilaahay dembi dhaaf u weydiistaan 70kii wadaad markay tageen buurtii jabalu duur oo ay maqleen nebi muuse oo ilaahay u waxyoonayo ayay dhaheen muusow kuma rumaynayna adiga ilaa aan si caddaana u aragno ilaahay kadibna naar ayaa xagga samada kaga timi oo 70kiiba laysay nebi muuse calayhi salaam markuu arkay in 70kiiba ay hal mar naftu ka baxday ayuu rabbigii baryey ilaahayna ducadii ayuu ka aqbalay wuxuuna ilaahay dib u soo nooleeyey 70kii wadaad si ay ilaahay ugu mahadiyaan qisada saddexaad kumanaankii qof ee geerida ka ordayey magaalo la dhaho daawardaan waxa ka dilaacay cudurka daacuunka dabadeedna dadkii deganaa oo kumanaan qof ahaa ayaa waxay dhaheen magaaladan aan ka cararno waxaynu tegaynaa magaalo aan lagu dhimanaynin kumanaankii qof markii ay ka soo baxeen ayuu ilaahay wuxuu yidhi dhinta wayna wada dhinteen hal mar
muddo kadib ayaa meydadkoodii waxa soo dulmaray nebi ka mida nebiyada ilaahay oo lagu magacaabo xasqaayeel kadibna ilaahay ayuu weydiistay inuu nooleeyo wayna wada noolaadeen dhammaantood qisada afaraad nebi cusayr iyo dameerkiisii nebi cusayr wuxuu ka mid ahaa nebiyadii reer bani israa'iil wuxuu soo maray magaalada qudus oo burburtay kadib markii bakhtunasar ninkii la dhihi jiray uu ka adkaaday reer bani israa'iil markuu arkay magaaladu sida ay u kharaabtay ayuu wuxuu yidhi sidee ilaahay u noolaynayaa magaaladan dhimasho kadib dabadeedna isaga iyo dameerkiisii ayuu ilaahay dilay muddo 100 sannadooda kadibna ilaahay wuu nooleeyey malagii ayaa wuxuu ku yidhi nebi cusayr intaad halkan ku nagaaday wuxuu yidhi maalin ama maalin badhkeed waxa lagu yidhi waxaad ku nagaatay halkan 100 sannadood ee balfiiri cuntadaadii ismay beddeline oo haddana balfiiri dameerkaagii sida ilaahay u noolaynayo nebi cusayr markuu arkay mucjisadii la tusay ayuu qiray weynida ilaahay iyo inuu ilaahay wax kasta uu awoodo qisada shanaad shimbirihii nebi ibraahim ayaa ilaahay weydiistay inuu tuso qaabka ilaahay wax u abuurayo markaasuu rabbi wuxuu yidhi miyaanad rumaysnan ibraahiimow nebi ibraahim wuxuu yidhi haa rabbiyo waan rumaysnahay waxaan rabay in qalbigu iigu dego ilaahay wuxuu yidhi waxaad soo qaaddaa 4 shimbirood kadibna gowraco mid kastana waxaad geysaa buur dusheeda kadibna u yeedh way ku imanayaan iyagoo nool oo duulaye nebi ibraahim sidii la faray ayuu yeelay wuxuuna u yeedhay shimbirihii uu gowracay waxaana u yimi 4 shimbirood oo nool oo duulaya shanta qiso ee ilaahay uu suuratu al-baqara uu kaga warramay waxay intuba ina tusinaysaa awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo in ilaahay ay u fudud tahay inuu dib u soo nooleeyo dadkii dhintay ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم wuxuu noo yeelay tusaale waanu halmaamay abuurkiisii wuxuuna yidhi yaa noolayn lafa baaliyoobay waxaad dhahdaa rasuulka ilaahayow waxaa noolaynaya kii markii horeba bar bilaabay isaguna abuur kasta cilmi ayuu u leeyahay